Okay, kusoo dhawaada casharadeen Excel. Waxaan ku jirnaa qaybihii ugu horreeyay. Maanta waxaan fiirinaynaa math operatorada Excel markaad sameynaysid programkan xisaabaad ku sameysanaysid signyada la isticmaalo. Horta kan highlight gareey equalka oo maaragtay lamid ka ah waxaan u highlight gareey waxa waaye waa midka ugu muhiimsan waaye. Xisaab kasta calculation kasta oo aad ku sameynaysid programkan waxaa u baahan tahay wax ka bilaabaysaa equals ka bilaabaysaa. Marka tusaale ahaan equals aad leedahay calaamadan aad aragtaan waa midda lagu sameeyo powerska exponentiga lagu sameeyo waaye. Af Ingiriis ahaan waxay dhahaan caret ay dhahaan. Marka equals 2 aan leenahay raised macni to the power of 2 waxuu yiri waa 4. Marka inuu power sameeyo waxa bal aan fiirina aan dhahna kan aan dhahna marka 3 halkaan ka dhig 3 raised to the power of 2 9 dhahay. Marka waa aragtaa inuu operationkaas uu sameynayo. Marka aad click gareysidna waa arkaysaa inay kugu jirto calaamadii caretka kugu jirto. Midaan iyada asterisk al dhahaa waxay ku sameynaysaa multiplicationka ama ku dhufashada waxaan dhahno. Marka xisaabaadka isku dhufanaysid aad isticmaalaysaa. Tusaale ahaan equals aad leedahay 1 mujida times 9 muxuuna siinayaa marka wuxuu dhahaa waa 9. waa macnihii conceptiga ina isla fahno uu sameynaa maana inay waxaan simple xisaabo oo aan maskaxdaada ka sameyn kartid inay tahay I'm fully aware of that waa ogahay. Laakiin waxaan rabaa inaan isla fahno si aan u ogaano waxa inay yihiin waxa uu sameynaa inay sax yihiin in kale. Okay, marka hadda inta waxaan dhahna wuxuu sameeyay operation oo ku dhufasho ah. Bal inta dhahna marka laba aan dhahan inuu sax sheegaa in kale. Wuxuu dhahay 2 times 9 18 waa dhahay. Aan dhahna marka 9 kale 9 times 9 aragna bal wuxuuna si 81 dhahay. Marka u jeednaa inuu noo sameynayo isku dhufanayo labadan cell oo isku dhufanayo ka bacdina halkan uu nagu siinayo jawaabta saxda ah. Midaan calaamadan iyada ah waxa lagu sameystaa qaybinta divisionka lagu sameystaa. Waxaa la dhahaa iyada forward slash lagu dhahaa afka Ingiriiska. Ha hilmaamin equals ka bilaabaysaa marka waxaa lana 50 divided by what 2 50 divided by 2 wuxuu noo soo tuuray 25. Wuxuu dhahay konton haddaa laba u qaybisid jawaabta wuxuu dhahay wuxuu yiri waa 25. Okay, aan dhahna halkan marka waxa u qaybisaa 50 kale u qaybi. Aan aragna bal inuu 1 na siiyo. Wuxuu dhahay 1 waay marka 50 divided by 50 wuxuu dhahay waa marka halkaa waxaa ka aragtaa in uu xisaabtan labadan uu isku qaybinayo. Tan waa calaamadii aan dhihi jirnay isku dartaa ama plus sign-ka aan u naqaani waaye. Marka tan waxay ku fulinaysaa marka xisaabaadka isku daraysid. Marka waxaa leedahay tan equals 20 okay plus 9 aragna marka wuxuu dhahay 20 meel ay 9 meel hadda isku dartid waxaa haystaa ku dhahay 29 sax miya. marka halkaan aan 10 ka dhigay bal aan arka marka inuu dhaho 30 waa ka marka wuxuu dhahay waa 30 halkaasna mar walba kala soconaysaa calaamadii addition ay kugu jirto. Tan aan u imaano tan ayada waxa waaye waa ka jartay waaye take away maaragtay waa minus sign-kii waaye. Marka waxba kala jaraysaa. Marka waxaa equal-ka laakiin muhiim equals aan leenahay 10 take away 2 maxaa soo baxay marka 8 uu dhahay marka 10 uu dhahay haddii aad ka jartid laba aad ka jartid 8 haysataa. Marka 10 aan haysanaa aan 10 kale ka jarna marka aan aragna waxa uu noo soo tuuro wuxuu dhahay ever haysataa. Isaga negative horta ma sameeyaa waa su'aal meesha maaragta ku jirto sama aan dhahna marka 10 waay meeshan waxaan ka jaraynaa 20 wuxuu dhahay marka negative 10 ku jirtaa mujida adaa minus ku jiro. Marka waa aragtaa in uu sameynayo halkaan waa taabanaysaa in uu ka jarayo xisaabtan inuu tan uu ka jarayo.
aan dhahna marka 10 waayo soo maahan waxaa ka jirtaa eber ka jar 0 ka jar fiir hadda waxaa hilmaam okay eber ka jar aan dhahna okay wuxuu dhahay waa saxa 10 minus 0 wuxuu dhahay waa 10 waayo dhahay marka waa saxsee tan ayada waa percentage signkii aad taqaaneen marka percentage signka markaa sameynaysid seelka aad rabtid in maaragtay xisaabta kugu dhacdo waxaa la sameeya badanaa isaga maaragtay waa la highlight garaystaa markaa highlight garaysatidna percentage sign kala taabtaa si aad rabto percentage kugu bedelo waayo normally programkan markaa percentage sign sameynaysid wuxuu ku siinayaa decimal form ku siinayaa marka haddana decimalkii aa usii bedeshid percentage aa ku qasban tahay marka branchigan waxaa ka shaqeeya 134 qof waxaa laga rabaa inaad soo report garaysid percentage ahaan inta qof oo imaata maalin kasta marka waxaa leedahay equals 20 people aa jooga out of 130 people oo la rabay marka meeqaba aa ka joogto wuxuu dhahay marka 15% aa haysataa 15% aa ka joogo shaqaalahan okay aan dhahna shalay waxaa joogay 100 bala aragna percentage shalay joogay 75% wuxuu yiri shalay joogay haddii aan dhahna marka 67 aa joogay half inuu noo soo tuuro aan fiirino aan dhahna inter marka wuxuu dhahaa kaas half aa jooga marka 50% shaqaalaha joogay marka waa qofka markii uu rabo inuu isticmaalo programkan excelka uu isticmaalo operatorada iyo waxyaalaha u suurtagelinaya inuu xisaabtii power uu saaro ama uu isku dhufto ama uu kala jaro ama isku daro ama uu maaragtay ka jaro ama percentage uu maaragtay xisaabtiisa uu soo saarto waxyaalaha u fududeynaya waa kuwan marka kuwan operatораdan waaye marka inuu barto qofka waxa weeye aad muhiim u tahay marka intaasaan kusoo qaadanay maaragtay clipkan waana basic markii laga hadlayo excelka waa aad waxa ugu muhiimsan waaye tan ha hilmaamina markasta qeyraan isku rajeynaya next clip aanoo balana